madaxda dowlad goboleedyada Hirshabeelle, Puntland iyo Galmudug waxaa laga sugayaa inay soo saaraan magacyada musharaxiinta u baratamaya xubnaha aqalka sare ee dowlad goboleedyadaasi ku matali doona baarlamaanka dowladda federaalka aqalkiisa sare waxaana dowlad goboleedyadu ay wajahayaan culaysyo siyaasadeed oo gudahooda ay la daalaadhacayaan waana mid ku saabsan hanaanka xallinta ayaana ku noqonaysa caqabad weyn oo culus saddexda madaxweyne dowlad goboleed Siciid Cabdulaahi Dani Cali Guudlaawe iyo Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor waxa ay ka siman yihiin inay doonayaan kala maaraynta kuraasta qaarkeed gaar ahaanna kuwa xasaasiga ah dhacdo kale oo u sii dheer Axmed Cabdi Kaariye waa sida uu dhinacyada oo dhan ku qancin lahaa taas oo dadka siyaasadda faaleeya ay ugu yeerayaan mid aan suuragal ahayn wakhtigan xasaasiga ah ee ay Soomaaliya u diyaar garoobayso hanaanka doorashooyinka qabsoomidda madaxweynenimada sidaan ogaanay dhinacyada mid kastaaba waxa uu danaynayaa soo qoridda senataro saaxiibadiisa oo hadhow ka difaaca masraxyada siyaasadda marka la gaaro doorashada soo wajahan laakiin caqabadaha beeluhu waa arrin kale oo si fudud uga gudbi karin dhinacyada qaarkood laba jiho oo ay dowlad goboleedyadu doonayaan waa in ay maareeyaan natiijada madaxweynaha imaan doona waxyaabaha ka dhalanaya iyo laba saamaynta beelaha gudaha oo laftirkeedu horgumooyin aan yarayn shidi doonta kuraasta xiisaha leh ee taalla saddexda dowlad goboleed ayaa ka dhigtay liiska madaxdani hayaan inay weli kor u hayaan gaar ahaanna Qoorqoor kursiga ay isku hayaan Cabdi Qaydiid iyo Xaaf waa mid ka mid ah murugyada siyaasadeed ee haysta sidoo kale xiisadda cabsida ka qaba waa arrinta baarlamaanka oo doonaya in kuraasta si furan loogu tartamo loogana saaro xiridda taasina waa caqabad kale Axmed Cabdi Kaariye waxa uu doonayaa in senator Abshir Bukhaari gudoomiyaha aqalka xigeenka aqalka sare ee waqtigan uu hadda cidlo u diro waxa uu ka fakarayaa doonista in kursigan loo dhaadhiciyo aqalka hoose golaha shacabka si uu xasaanad ugu helo Saadiq John oo hadda furimaha hore ee dagaalka Galmudug ku maqan gaar ahaan Mudug horeyna uga soo baxay Muqdisho ayna jifo hoosaad ka soo wada jeedaan Qoorqoor Cali Guudlaawe mashaakilka uu wajahaya waa kursiga senator Muuse Suudi Yalaxow oo ay nabad iyo nolol doonayso in lala qoro xubno ay ka mid yihiin Cabdullaahi Sheekh Xasan iyo Muxyidiin Xasan Afrax Guudlaawe aragti ahaan wuu ballan qaaday inuu liiska ku soo saarayo Muuse Suudi laakiin haddii cid la qorayana ay noqoto mid saamayn leh shaki ma leh laakiin haddii cid la qorayo ay noqoto mid saamayn leh shaki ma leh in dagaal culus uu wajihi doono Cali Guudlaawe kaasoo ka imaan doona dhinacyo isku dan noqon doona waxaana Muuse Suudi oo aqalka sare baneeya ay ka dhigan tahay dagaal adag oo Cali Guudlaawe wajahayo Siciid Dani dhankiisa waxa uu doonayaa in kuraasta aqalka sare uu gowrac siyaasadeed ku mariyo saaxiibadiisa ay isku marjaalka ahaayeen ee ku jira golaha shacabka kuwaas oo uu arko inay caqabad ku noqon karaan doonistiisa inkastoo uusan la mid ahayn labada madaxweyne dowlad goboleed ee kale haddana laftirkiisu waxa uu dareemi doonaa miraha ka imaanaya gudaha Puntland oo aan sahlanayn muudsigooda Dani waxa uu dheer yahay dhinacyada waa in liiska uusan ku qancin doonin dhinacyo kale oo siyaasadeed sida fiila Soomaaliya ama kooxaha mucaaradka ee madasha badbaado qaran ay ka wada mid ahaayeen waxaana uu doonayo oo kaliya ay tahay isaga cid la aragti siyaasadeed ah taasoo u ah yoolka koobaad ee doonistiisa waana mid uu kaga dhib yar yahay saaxiibadiisa Cali Guudlaawe iyo Axmed Cabdi Kaariye 48 saac ee soo wajahan ka hor ayaa laga sugayaa dhinacyadu inay shaaciyaan liiska xubnaha aqalka sare saddexdoodu way isdhowrayaan ayay leeyihiin dadka la socda arrimaha siyaasaddu waxayna sheeda ka eegayaan midka ku hormara caqabadaha qabsada haddana ma aha kuwa isku daruufa ayaa la warinayaa maadaama qaarkood ay ku furan yihiin dagaalo siyaasadeed oo dhinacyo badan ay qayb ka yihiin halka Dani uu yahay mid aysan ku furnayn dagaalo badan oo siyaasadeed laakiin dib ayay ka qabsan doonaan ayay leeyihiin dadka hilaadinaya arrimihiisa ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta kale islaamka Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay Hidayah online waxay ka caawinaysaa barashada quraanka higaada adkaarta
iyo sidoo kale luqadda carabiga. wixii faahfaahin kala xidhiidh